anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarta beelweynta Garxajis waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa shirkii beelweynta Garxajis ee dhawaanaanba uga socday buurta gacan libaax iyo qodobadii ka soo baxayba si mug iyo miisaanla hadaan nahay kan dhalinyar ahaan aad baan u taageersanay mar labaad waxaan u mahadnaqayaa oo marnaba ilaawi karayn reerii lagu soo marti qaaday sida sharafta iyo quruxda iyo milgaha looga soo qayb galay iyagana waxaan leeyahay mahadsantiin anigoo hadalka soo gabagabeeyay mar saddexaada madaxweyne Muuse Biixi waxaan yar xasuusidayaa waxaad ku ololeedaysay madaxweyne sharcigu ha sareeyo sharciga tagaa sareeyana waa ka suldaan cuno reer aflagaadeeyay jeelka ku xidhay cali gurina lacag lagu siidayo oo isagoo reer iyo qabaayilo si badheera u aflagaadeedayo anta aad baan idin salaamaya waxaan kala salaamayaa cid kastoo garanaysa waxaan si mug iyo miisaan leh u hambalyeynaya shirkii ka soo baxay qodobadii ka soo baxay steedii qodob ka soo baxay shirkii ka socday gacan libaax ee beelweynta Garxajis hadaan nahay dhalinyarada beelweynta Garxajis aad baan u soo dhaweynaynaa mid kale waan ku darsanayaayo cali guray waxaan leeyahay cali gurayow waxaad ataagtay Axmed Mire isku facmadihiin oo kuma jawaabayo inaga isleeba anaga ku jawaabaya waxaan ku leeyahay cali gurayow samayso adigu nolol Facebook ha dhaafto noloshaada iyo waxa soo boosti garayso Axmed Mire wuxuu leeyahay maalin la xuso adigu laakiin taariikh kuma lihid Soomaaliland maalin ma lihid xisbigeedu ololeynayay waxaad ku ololeynayay habar awal hadii soo bixi weydo 20 sano dambe ma soo baxayo nin habar awal maanta loo codeyn waayo Muuse Biixi awalta ku ololeynayay ayad Axmed Mire doonayay wax ka sheegtay isagoo intuu xilkiisii qaranimo intuu gutay ka maqnaal 20 sano dalka uu maanta ku soo laabtay kaama geeyay waxaan ku leeyahay isku noqoday nin weyn baa tahay waxaan jeclahay maanta inaan madashan uga faa'iideysto marka hore inaan hambalyo iyo bogaadin u diro dhammaan intii ka qayb qaadatay hawlwadeennada ka ahaa shirkii quruxda badnaa iyo soo abaabulay madashii quruxda badnayd si qurux badanna u saaf jaray marka hore waxaan leeyahay shaqo wacan baad qabateen ayaan hambalyo baad leeyahay mar labaad waxaan jeclahay inaan halka ka cadeeyo inaan taabaxsanahay oo ayidsanahay oo taageersanahay dhammaan qodobadii shirka ka soo baxay ee lagu soo iba xiray nuxurkoodiina lagu soo gunaanaday kuwaas oo ah qodobo dhammaan bulshooyinka Soomaaliland noqdeen kuwa ay soo dhaweeyeen kuna diirsadeen inta ka bacdi waxaan jeclahay inaan halkan fariin uga diro xukuumadda iyo madaxweyne Muuse Biixi oo aan leeyahay maanta dalku wuxuu marayaa marxalad kala qaybsanaan kala fogaansho kala durug kala shaki maxay tolay cid walbana cabasho iyo tabasho intuba soo tabanayso Soomaalilandii mid kale lagu ahaa loo sinaa aan jirin waxaan jeclahay markaa inuu sida ugu dhaqsaa badan cidii wax tabanaysana tabashadeeda fuliyo dadka sidoo iskugu soo dhaweyn lahaa ee loo heli lahaa Soomaaliland loo siman yahay haday saami noqoto haday shaqaale noqoto iyo haday sinaansiyo maamulka iyo xiriirka inta kaleba noqotaba inuu hawsheeda ka qabto wax qabadkeeda iyo dadka isku soo dhaweysheedana ka shaqeeyo sidaynu helno maxay tahay horumarkii markii hore baynu ku taami jirnay iyo higsigii iyo himiladii iyo hiiraalkii aynu lahayn intaba intaasan ka baxaya. Assalaamu calaykum.